sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka uu sii warramayay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dagaal saacadii aan soo dhaafnay ciidamada dawladda iyo xoogagga al-shabaab ku dhexmarayay deegaanada bariga waqooyi ee gobolka Hiiraan ayadoona dagaaladaasi gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay in ciidamada dawladda ay ku dileen saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab sida uu hadalka u dhigay howlgalladii ka dhacay dhinaca waqooyi bari gobolka Hiiraan waxa uu khasaare kulaa dagaalkii ka dhacay meesha Orotan la yiraahdo خسارة لوجو جيستي عيدنكي ميليشيات كي أرجع الشباب لوجو جيستي نباطه مركا ماشي عصنا هرجوجو أيا كوجيريودي ولي ولا بهرجوجو أيا كوجيريودي ميت كودنا لكانت بلدوين كنت وأقولش أي سوهوين حوج درك الصوماليات وح إلهي مهديسه إن مالين كستا ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhiiranayaan ay howlgallo sameynayaan cadawgina oo si firxanaya khasaarahoodana la soo sheegay maalin kasta waa guulaha soo hoyanaya gobolka Hiiraan